بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kalimaad yar aan jeclaa inaan idin la wadaago oo ku saabsan diraasaadka sharciya habka loo daraaseeyo culuum sharciya loo daraaseeyo marka laga eego sidii shalay ahayd iyo maanta iyo waxa laga filanaya mustaqbalka الدراسات الشرعية سيدة وأهمية خاصة أي وحول لها إنسان كمسلم قفك مسلم خاص بيقول وجودها ها قف متخصصة أو علماء أو برنا يا شريعة فنون تذكر الدول أما هذا قف مسلم أو عادي oo laga rabo على الأقل ilmaam ama wax yar inuu ka fahansan yahay shariicada iyo culuumteeda daraasadeedu mar walbaba waa muhiim dadkii hore ama ummadda muslimiinta ha noqoto sadrigii hore salaf saalix iyo waxay ka dambeeyay العلوم الشرعية waxaa jiray dad nawaabiq ku ahaa ku takhasusi jiray العلوم الشرعية تدكو تخصصا أيها جري إيو داد إلى هير دحي أي أتهي إيو داد عامك إنت بقى ويجرين أنا مجال كان ربنا كهالله وحاوي داد كعلوم الشرعية ربنا يبرتان مركي عهدي الصحابة دا لغا صوب بحي كدب تابعينتي لبلابي دريقة دي لو برنا يوحى أهاي قفكو إنو أحريستو شيخ مشايخ دا إسلام ككمدة علماء كمدة أو كقاطو ما عنده من العلم مركا أو كقاطو علمي أو كقاطو كدبنا وحقو ريجي جري الشيخ كلا أما مجالك كلا أيو ريجي جري سو علومته أو جرات سدو مجال داس علومته شرعية يالا فنون تكلا دوان صادرت هذا أئمة فقهية مركا أن مقالله waxaan maqlaynaa intaas fula wuxuu u guuray meel hebel buu tagay waxbuu ka bartay intaas oo mashaayikhu wax ka bartay kadib wuxuu u sii wareegay hebel marka uu culuumta uu sameeyo ayaa waxa la siin jiray wax la yiraahdo ijaaza ayaa la siin jiray ijaazadaas ama idan loo idmaayo oo la leeyahay waad gaartay darajadii isku filaasho aad gaari lahayd fatwa aad sameyn lahayd ayaad gaartay meesha ka dhaqaaq ayaa la oranayaa marka dariiqa waxay ahayd waqti dheer qaadata aad u culus duruusta uu qaadanaya ay tahay duruus aad u fara badan qofka yaani masaa'isha uu ka baranayo iyo ahdaafta uu ka baranayo ay aad u badan tahay waxaan rabaayo kale inaan tilmaamo waxa meesha ku jira wuxuu la noolaanayaa culummo la nool buu noqonayaa dadka culimada baariziinta ayuu la soo noolaanayaa wuxuu garanayaa nusuus shariica islaamiga sida ay ugu qoran tahay kutubta mooyee xataa culimada tawjiihood iyo tafsiirkood iyo nafaskood iyo waxooda ayuu ka qaadanayaa saasoo qofku wuxuu noqonayaa qof raasikh cilmiga xagga ku ah lana cilmigu intiisa badan waa qoran yahay sida culimada ay tilmaamaan laakiin waxa la rabaa qof kugu tawjiihiya oo kugu sameeya ayaa la rabaa ساسو الإمام الشاطبي رحمة الله عليه وأندلسي أها أصولي أها شيخ المقاصد أيا وحا أوليه مركا وكور رمايو كتاب اسمه فإن العلم لفي بطون كتب وإن مفاتحه بأيدي الرجال علمي وحكوية لا كتب علاشات أيو كبوحة فنون كستأوية لان والله قري لكن فرهد علماء iyo ragga ayaa haya dad culimo ah oo ku takhasusay ayaa arinta haya saadarteed culimada aad waxa loo ceebeeyaa laha qofka kitaabada cilmiga ka qaata ee aanan ola noqon culimo hadhowdii uu wax ka barto oo ijaaza siisa aanan wax ka baran saasoo wuxuu u soo qaadanayaa al-imaam ibn al-hazm رغم غزارة علمه وفقهه علمه ساعاتك أبضنا وحوليه وحا lagu sheegay
in uu kutubta uu u badnaa itilaaca uu u badnaa marka itilaaca iyo kitaabka mudaalacayso oo aadan ka baran culimo aadan ka baran yani waxaa marar badan kugu dhacaysa zallaad baa kugu dhacaysa fahmiga kaa qalloocanaya marka taana way jirtay oo calal aqal taa culimada aqlabkood iyo sidaa bay u badnaayeen jamaahiirul culamaa cilmiga lagu qaadanayay laguna ilaalinayay fahmiga toosan ee macnaha la fahmo sidaasay ahayd saasaa lagu soo maray madaarista xataa madaahibta kala duwan xataa turuqa suufiya kolka la arko oo iyaguna door ka qaatay nashriga iyo maxaa la yidhaahdaa culuumta iyo dadka muriidiintooda ah mar walbaba tarbiyantooda ruuxiga ka qaatay yacni iyaguna qayb ayay ka ahaayeen inay qofku kolkuu soo tarbiyaysmo isagana ijaazo la siiyo ayay ahaayeen biqadda nadar yani waxaasuu ku khaldan yahay waxaasuu ku saxsan yahay ana ka hadli mayno laakiin waxaan ka hadlaynaa dariiqadda oo ijaazaadka la isku siiyo waxay ahayd qofka markuu soo tababarto oo culimo gacantooda ku soo tababarto funuun badan soo qaato ayuu u intiqaali jiray culimo kale dariiqadda ayay ahaan jirtay waxaana jiri jiray nuqtada labaad oo kale waxaa jiri jiray علومتا إن لو برتو si tasalsuli ah si taxane ah waa kitaabaha qaarkood waa la yaqaanay magaalo kasta iyo balad kasta bilaad al-maghrib kutubo lagu yaqaana jiray bilaad al-mashriq bilaad al-haramayn kutubo oo qofka si tadarruji ah marka hore kitaab hebel hal la akhristo kadib kitaab hebel fannigaas hadda ka soo qaad xadiidka kitaabka ku bilow sida hadda 40 an-nawawi sida ku bilow tasalsulka ilaa aad ka gaarto al-ummahat sita iyo kutubada waaweyn ayaa loo akhrin jiray fanniga fiqigana kutubu ka bilaabi jiray hadba madhabka magaaladaas ama wadankaas saa'idka ka ah kitaabadiisa bilowgu ka bilaabi jiray ilaa uu ka dhameeyo marka xagga kutubtuna musalsal bay ahayd xagga kale culumadana waxay ahaayeen culimo kala duwan oo uu kadibna uu ka soo qaato ilaa uu ka gaaro darajo ijaaza laga siiyo dariiqada ayay ahayd ma jirin waxaan loo yaqaano iskuulo nidaami ah ama jaamacaad oo habkan casriga ah ma jiro intaajkooduna aad buu yani cilmigooda iyo u badnaa laakiin dariiqadan dambe kolkay timi al-ulum ash-shar'iyya waxa ay noqotay tasalsulkii mawaada iyo tasalsulkii way jiraan oo jaamacaadku way ilaaliyaan oo qofkii sida mawaada u kala hareeyaan iyo way jiraan laakiin funuunta sida ay u yihiin u kala saaran yihiin oo qofkii dariiqa taqliidiya loogu sameyn jiray oo xalaqaadka loogu sameyn jiray uma samaysna laakiin waxa way jaamacaadku sidoodu mafaahiimta inay aruuriyaan macluumaadka inay namaadij ka siiyaan ardada iyo culuum sharciya dadka baranaya inay ka siiyaan funuunta asaasiga oo ah iyo waxyaalaha uu ku takhasusayo ayay aad si mustalahaadkiisii iyo meesha laga galayo iyo sida loo soconayo iyo baranaya kulligoodba markaad fiiriso waa cibaara can namaadij ayaa qofka la baraya ma aha macluumaadkii ku soo arooray ahadiista hadduu qofka ku takhasusayo ahadiistii oo dhan looma dhigayo namaadij baa loo dhigayaa fiqiga hadduu ku takhasusayo fiqigii namaadij ka mid ah oo abwaabul fiqhi ayaa loo dhigayaa marka waa cibaara can muqtatafaad iyo namaadij oo musalsal ah hadhowdii kolka uu gaaro darajaad kala duwan markuu 4 sano dhigto isaga waxa la siinayaa baccalaureate ama ijaaza sida dawladaha qaarkood ay yiraahdaan sida bilaad al-maghrib al-arabi waxay yiraahdaan al-ijaaza la siinayaa marka waxay ka hartay dariiqadii taqliidiga laakiin laba isku ijaaza ma ah ijaazadan waa sanado cadiida ay qaadanaysay culimo badan wuxuu ka soo baranaya inta inkastoo macallimiin badan uu ka baranayo culumta la baranayo way ka fara badnayd marka ijaaza ay ku magacaabeen laakiin waa ijaaza bilow ah waaye ama baccalaureate waxa ku xiga marka marxaladda kale ee qofka magister uu ku si takhasusayo qayb kamida uu ku takhasusayo iyadana waa ijaaza kale marxaladda doctoraagana waa ijaaza kale intaasba waxay ku tusaysaa waa ijaazaad qofka la siinayo waxa way culumadii hore waxa ay takhasuskooda culuum sharciga ahayd waasic ama shaamil ba laga yaabaa mararka qaarkood markaama casrigan hadda la gaaray casru takhasus
iyo mawduucaadka in aad loo sii kala saaro ayaa waxaa laga yaabaa qofka inuu xataa darajada doctoraa marka uu gaaro majaal mucayana oo kooban inuu ku takhasuso oo uu ku noqon karo mufti ku noqon karo majaalka qofka oo yani ugu roon uu ku noqon karo marka taana waa dariiqada oo kale loo sameeyo waxaan ku soo gabagabayn lahaa haddii mulaaxadaad aan ka bixiyo culuum sharciya marka la baranayo waxay u badnayd 3 khutuwaad ay culimmadii hore qaadi jireen kuwa maanta jooga jaamacaadkana la rabaa inay dib u milicsadaan waxa weeye qofka marka hore waxaa la bari jiray siiba fiqiga iyo kolka laga hadlayo sida taqriib mafaahiimta in loo soo dhaweeyo qofka طالبka cilmiga sharciga mafaahiimta in loo soo dhaweeyo lana baro adawaadka uu macaanida kula soo baxayo macaanida haduu yahay takhasus kasta iyo meedaan kasto baranayo in inta loo dhaweeyo waa qodob oo tii hadda way jirtaa horena way u jirtay walow asaaliibtu ay kala duwan yihiin waxa kale oo jira nuqtada labaad waa dabdul macluumaat wal masaadir masaadirta uu takhasuskaas uu ictimaadayo in aad loo fiiriyo masaadirtaas la dabdiyo saas darteed markuu fiqiga baranayso masaadir tashriic islaami ayaa lagu barayaa marka aad culuum alxadiid ku takhasusayso madkhal lilculuum alxadiid ayaa lagu barayaa oo isagana ku tusaya mustalaxaadka iyo siday kale yihiin iyo kutubta iyo meelaha ka qaadanayso iyo darajaadkooda lagu tusayo marka waa qayb labaad qayb saddexaad labada kaliya kuma eka qayb saddexaad waxa weeye tanziilul mafaahiim mafaahiimtaas iyo axkaamta aad baratay iyo nusuusta aad baratay seed ugu dejinaysaa cala nawaasil dhacdooyinka ku soo mara oo nolosha seed ugu dejinaysaa marka dejintaasna waa qayb marka waxaad moodaa dejintaas inta badan culummadu can طariiq almumaarasa ayay dadka ku bari jireen kutubo laga qorayna way jiraan majaalka fiqh almaqaasid alshariica alislaamiya iyo kutubta laga qoray nawaasisha iyo usuulul fiqhiga intaba waxa waaye usuul fiqhiga khaasatan in yar buu ka taabanaya inta badan ifhaamkaas iyo masaadirtaas iyo see loo fahmay axkaamta loola baxaya ayay tahay laakiin see axkaamtaas ala dhulka ahaan ala ardul waaqic loogu dabaqaya oo waxyaalihii dhacdooyinka loogu dabaqaya inta badan dadka waxa lagu bari jiray mumaaraso kutubada laga alifay nawaasishu way yar tahay maqaasidana mar dambe ay aad u soo kobacday laakiin waa iyadana waa dariiqadii sidii loogu dabaqi lahaa يعني lagu sameyn lahaa marka waxaan isleeyahay meeshaas waa meesha culuum sharciya u baahan in la kobciyo dadka ardada culuum sharciya baranayana si xoog leh looga xoojiyo meesha waa meesha oo u baahan hadii kale qofku wuxuu noqonayaa qof nadariyan ama macluumaad haysta ee aanan waaqici la noolaan karin baynama daraasaadkan hadda mucaasirka waxay xooga saaraan waxyaalaha qofka macluumaad kolka la siiyo macluumaadkaas in uu awood u leeyahay inuu dhaqan geliyo inuu awood u leeyahay ayaa la sameeyay dhaqan gelintu marka waa muhiim qofka waa in la baraa sidoo ku fatwoonayo waa in la baraa sida waxyaalaha uu ku sameeynayo oo dhan marka waxa ugu muhiimsan inay israacaan saddex shay daraasaadka sharciga oo la rabo hadda oo hiigsiga inuu noqdo waana daraasaadka ugu muhiimsan waxa weeye tandiirka iyo qawaacidooda xagga nadariyaadka iyo macluumaadka marka la barayo oo qawaacid عن طريق القواعد loo barayo oo qawaacid soo aruuriyo oo si loo soo koobo oo qofku si xoog leh oo yaani u ogaado waxa kale oo la rabaa diraasada xaalad iyo qadaayaad xaalado iyo dhacdooyin sidoo qofku u daraasayn lahaa ogana gungaari lahaa in lagu tababaro ardada loo diro si على الأقل fiqhiga islaamiga oo waaqici ah iyo qadaayaadka waaqiciga inuu isagu u ogaado ugu dambeyn in uu buxuus uu ka sameeyo قضايا متخصصة وكسميو تا سدحدا arrimood kolka la sameeyo diraasaadka sharciga oo maanta la joogo mucammaq bay noqonayaan aad bay u xil dheeraanayaan ardayguna wuxuu noqonayaa oo sharciga baranaya mid la tafaaculi kara ama la jaan qaadi kara waxyaalaha nusuus sharciya sidii lagu dabaqi lahaana si xoog leh mumaarasa ayuu u yeelanaya laakiin inta badan waxaan ka badbaadaynaa marka hadii saa la sameeyo khaladaadka faraha badan ee dhaca oo dadka qaarkood nusuusta ay garan waayeen see ula tacaamulaan oo ardul waaqic ay u dajiyaan oo dhinaci fiqh nawaasishi iyo wixii oo dhan ma yaqaanaan waxyaalahaas oo dhan marka dhinaci macluumaadku aad bay u soo kobacday laakiin ardaydii in la tababaro
oo waaqiciina ay u dejiyaan axkaamtii oo si maqaasidda iyo dawaabidda iyo mabaadi'da shareecada ilaalinaysa waa meeshaas meesha u baahan juhuud fiican in la geliyo fajazaakumullahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu